السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin wanaagsan Soomaali weyn meel walba aad joogtaan. waxaan rajeynaa inaad dhammaantiin wada fiican tihiin. maanta casharkeena waa cashar aad u qiimo leh oo ah is-ixtiraam labada dhinac ah. casharkeenan bilaabanaa bismillaahi raxmaani raxiim. mutual respect oo ah is-ixtiraam labada dhinac. qof walba inuu qofka kale ixtiraamo. haddaynu waalid nahay, haddaynu walaalo nahay, hadday dad isqaba yihiin, hadday dad daris yihiin, ixtiraam mutabaadal waa inuu ixtiraamka ahaadaa labada dhinacba, maaha inuu qof ixtiraamo ka kaleetan uu ixtiraameyn. what's a mutual respect? muxuu yahay is-ixtiraamka labada dhinaca? it's a treatment, waa ula macaamil ama ula dhaqan other people, dadka kaleeto, with dignity, si sharaf leh, recognizing, kaasoo garanaya ama aqoonsanaya their value, qiimahooda. waa inaad ula dhaqanto dadka kaleeto sharaf adigoo aqoonsanaya qiimahooda. adigu dhinacaaga saas awaarto qof kaleetana inuu sida awaarko dhinaciisa. markay saas noqoto waxay tahay is-ixtiraam labada dhinac ah. how to build mutual respect? sidee loo dhisaa ama dhismaha uu yahay ixtiraamka mutabaadalka ah. mutual respect, ixtiraamka labada dhinac ah, is to demonstrate, waa muujin ama qeexid, respectful, ixtiraam, behavior, habdhaqanka, on a daily basis, maalinlaha ah. waa in la muujiyo ama la qeexo ixtiraam habdhaqankeena maalinlaha ah. maaha shay mar iyo laba aan isku khasbaayo, la waa inaan ku dhaqmaa. kow nafteeda ixtiraamaa, nafaha kaleeto dhan aan ixtiraamaa. 3 types of respect, 3 nooc oo is-ixtiraamka jira. 3 nooc oo kala ah: human recognition respect, status recognition respect, appraisal respect. hadeen hal usoo kala qaadano. human recognition respect oo ah aqoonsiga aadanaha, ixtiraamka aqoonsiga aadanaha oo ah inuu qof walba qofkii kaleeto walaalkiis aadanaha ahaa ama bani aadamka ah uu ixtiraamo. laba qof oo isqaba waa in la is-ixtiraamaa. laba qof oo isdhalay waa in la is-ixtiraamaa. laba isla dhashay waa in la is-ixtiraamaa. ka weyn waa inuu ka yar ixtiraamaa, ka yarna inuu ka weyn ixtiraamaa. marka la isqabo waa in la is-ixtiraamo. mush anaa ninay agteeda waxba kama tihid. status recognition respect waa ina xaaladda uu qofkaas yahay aad qiimaysaa kuna ixtiraamtaa. appraisal respect, qiimeyn iyo ixtiraam. these some aspects, taas waa dhinacyo isku mid ah of respect, ixtiraamka ah. these same aspect, kuwani waa dhinacyo isku mid ah oo ixtiraamka ah, are the key play, waa ka ciyaaridda muhiimka ay leedahay, ka ciyaaridda in the construction, dhismaha of self respect, is-ixtiraamka. markuu qofka isagoo is-ixtiraamo dadka la ixtiraamo, naftiisa muxuu u sameynayaa, muxuu u dhisma gareynayaa ixtiraam. cunugii wuu ku weynaana ixtiraamka. markuu guri la is-ixtiraamayo kasoo baxo, xataa dadka waa laga gartaa qofkii hadal xunoo cay badanoo waxaa la dhahaa qofkaas meelshaasuu ka yimid. iyo qof markuu hadlaya si edab u hadlaya, maxaa la dhahaa guri saasuu kasoo baxay. leena wuxuu ka arkaa dadkii waaweynaa si ay u dhaqmaayaan. kow dadkii isdhaloo kaleeto, waalid markayna inaga Soomaali ahaan waalid markayna waxaan u haysanaa inuu waalidka
wax walba xaq u leeyahay oo ilmihiisa wuxuu rabo ku samayn karo taasuna sax ma aha waalidku waa inuu ilmihiisa ixtiraamaa sida ilmahana waalidka uu ixtiraamaa taasoo ah waalidka markuu cunuga yar yahay inuu koriyo bari markuu isaga weynaadana la daryeelo waa ixtiraamkii waalidku waa inuu ilmihiisa ra'yigooda qaato hadduu go'aamo ka gaarayo noloshooda waa inuu ra'yigooda qaato markay soo yaro weynaadaan maha cunuga wax aad leedahay oo kaleeto aad mulkisay naftaada ma lihid qof walba subxaanallah ilaahay nafteena hadiidunaysa nafteena inagu jirteenan lahayn seeta ciyaalkeena ku yeelan labo guurko kale markay noqoto waa la iskuursanaa ninka muxuu qaadanaa qoftan dumarka adaaba iskale waa dili kartaa waxa rabtaa ku samayn kartaa oo mujtamac uga aamusan yahay qaanuunka uga aamusan yahay reeraha hadday noqoto looga aamusan yahay waxaasoo dhanna waa qalad tusaalayaa inoo ah nabigeena calayhi afdal salaatu wasalaam meeqa xasuu lahaa weli nabigoo laga dacwoonaya maartay dumaradiisu halna ka dacwoonayso weligiis lagama dacwoon garoob in la guursado yaa siiyey xaqaas yaa siiyey nabigeenaa siiyey calayhi afdal salaatu wasalaam nabiga ka hor lama guursan jirin garoob muxuu isaga u guursaday ma naag jecel bay ka ahayd mise dumar jecel may waxay ka ahayd inuu gabdhaha ama dumarka xaq u siinayay inay mar iyo laba iyo saddex guursato lainuu nimanku og yahay iyo indha adeegooda iyo waxaan soconni rabaa inay socodsiiyaan mana aha kulligood man raxima rabbu miduu ilaahays u naxariista ma ogi laakiin intooda badan aniga lee nool taasoo keenaysa dumarkii oo ka tacliin yar oo heerkay tacliinta nimanka u badan yihiin tacliinta aysan baritaasaa keenaysa in xuquuqdooda la qaato bani aadan dabcigiisaba markuu ka kaleeto uu ka cilmi badan yahay ka xoolo badan yahay xaqiisa dhan wuu qaataa hadda waalidku kale markuu ilmaha yar yahay wax walba waalidka haaya cunuguu soo weynaaday la tasho cala alaqal waxaan say ku leeyihiin cunugina bari markuu weynaado isna kuu dhaluu la tashanaa laakiin marka aniga hadda gabadhii waa weynaatay aabiya soo baxaya ninaa soo doonaa maya mid lacag laa la rabaa cala alaqal weydii la tasho may kaa yeelin ku qanci faa'iidadaanuu leeyahy waxaanu ku fiican saanuu yahay kanuuna tarayaa kanuuna samaynaa la tasho markay wixii aragto inuu yahay waa kaa yeeli lena waa ilmahaagii laakiin may anaa ku dhalin waa ina naftaada uma talisid si iyada ugu talinay diinteena maxayna leedahay guurka bayna zawjayn mawadda waraxma naxariis iyo is-ixtiraam aawo naxariistii waa soo guurtay saa rabtid yeel naftaada saa rabtid ma yeeli kartid naf kale inaa yeeshid marka soomaaliya aynaan is-ixtiraamno dhowr iyo 30 sano dagaal la socdeen dhibaato dhinac walba naga soo gaartay dad islaanaynu nahay qof walba dib horta isugu noqo islaamnimada inaga mashaato kale u qabnaa mise waa ku dhaqanaa leeno diinteena aaday u qurxan tahay quraanka waa wada xifdisanahay laakiin ma ku dhaqanaa waay hadday noqoto waalid hadday noqoto guriyo adduunka waa ka dhex muuqanaa far khariban oo kale meelaan shan tagno waa ka dhex muuqanaa riyaarada wax fiican u muuqan lahayn waxba ka xoogayaan ka muuqanaa madaxdeena oo kale taadeer is-ixtiraam waa inuu shacbiga ixtiraamaa iyagana inuu ixtiraano inaga maxaynu isku nahay inuu madaxdu waxaa moodaysaa inaan iyagana leeyihiin oo iyaga aan anaga u shaqeyno iyaga mafruud inay noo shaqeeyaan waa iyagaa noo shaqeeya anagoo ma shaqeyno annagaa keenno doorana annagaana ridi karna ma subina inaga may dowladaha horumareen joogno waa aragteen markuu madaxweynaha la rabin markuu boora la qaataa markuu rabno waxaan bedel saan yeel annaga ma ku dhacnaa may wuxuu rabuu dila wuxuu rabuu dhaca wuxuu rabuu suubina ma maraxas leedahay shirkadiisa maama shaqaalo uga nahay qaladkana isaga ma laho inagaan tusin xaqeena ma naqaano marka waxa qof kale waxaa keenaysa inuu xaqaaga daa adigu xaqaaga qofka kale indhahaaga furan uu kaa qaadana xaqaaga marka adigana is-ixtiraam qofka kale tan ixtiraam ina adduunka inagu filan inagana badan
waxaan rajeynaa inaan ka faa'iidaysan doono casharkan dhammaanteen maanta khayr badan aan idiin rajaynaa dhammaantiin hana la is ixtiraamo qof walbo qofka kaleeto ixtiraam khayr badan aan idiin rajaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu